الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كوبية تبناد هي كتاب كيني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله. شيخ سيدان هرو شيخني هل سؤال أيو كجواب يا كتاب كوردن وهذا صومرني طبعا عشر تقريبا وقهد لي راد كمعصيدو أي كل هذا هي قفكه wuxuu hadda rabaa inuu haddana qeyb kale u gudbo oo ugu magac daray cuquubada ama cirib xumada macsiyada iyo dunuubta qofka ay ku reebaan. waxaa ka mid ah dembiga iyo macsiyada ruuxu markuu galo waxay ka damisaa qalbiga nolosha iyo ghayrada waxa la yidhaahdo. ghayradu waa dareen inuu qofku waxa xun diido, marka taasaa ka dhammaanaysa qalbiga. ghayradu waa xaraara iyo kulayl baa la yidhaahdaa ee saaraysa waxa qalbiga ku jiro oo xun iyo tilmaamaha xunxun, sida birta markii dahabka la rabo in la dhalaaliyo, dabka marka la saaro waxyaabaha dul saaran oo ciidda iyo qashinka waxaasoo dhan baa dahabku saafi buu noqdaa. sidaas oo kale ayuu qalbiguna iyo ghayradan iyo dareenkan iyo masayrkani wuxuu saaraa wixii xumaa oo dhan baa meesha ka baxa. dadka qofka ugu sharaf badan waxaa la yidhahdaa waa qofka ugu ghayro badan xagga masayr ahaan. naftiisa ma aha masayrkan ka hadlaynaay, waa midka naftaada waxa xun aad diido, waa midka dadka kale ena waxa xunxunka aad u diido, waa midka aad arkayso adagoo ka xumaanaya oo ka xanaaqaya markii diinta ilaahay lagu xadgudbo. taasaa ah inaad ka masayrto oo diido. walidaalika ayuu rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid ka sugan yaa wuxuu ahaa oo saxiixaynka ku sugan: atacjabuuna min ghayrati sacdin, ma waxaad la yaaban tihiin sacad, waa saxaabi jaliil ah, ghayradiisa iyo masayrkiisa. la ana aghyaru minhu, anigaa ka masayr badan buu rasuulku sala allahu alay wasalam. wallaahu aghyaru minii, ilaahay baa anigana iga sii masayr badan. ayib, xadiidkaasu imaamu bukhaari iyo muslim soo saareen. maxaa loola jeedaa? mar kaluu xadiid kale rasuul ku fasiray oo isagana bukhaari iyo muslim soo saarayaan. wuxuu yidhi: yaa ummata muxamed, ummaddan muxamediyada ahay, waxaad ogaataan maa axadun aghyaru min allahi, ma jiro qof ama cid kale oo kaga ghayri iyo masayr badan rabbi inuu arko addoonkiisa oo zinaysanaya, addoontiisa oo zinaysanaysa. sidaas daraaddeed buu xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan. sidaas daraaddeed buu xumaanta oo dhan diiday oo meesha laga saaray. haddaba ghayradaas iyo masayrkaa qalbiga ghayra oo bilfatxi la aqriyaa loo dhahaa alghayra, taasaa ka dhammaanaysa ruuxa haddii dembigiisu bato. walidaalika arkaysaa isagoon kala jeclayn. waxaa sidoo kale ka dhammaanaysa alxayaa, xishoodka ayuu dhammeeyaa macsiyada iyo dunuubtu. xishoodku waa asalka khayr kasta, asalkiisu waa xishood baa la yidhaahdaa. haddii uu qofka ka tagana de waxaa ka dhammaanaysa inuu xumaanta diido. alxayaau khayrun kulluhu, rasuulkaa yidhi sal alla alay slam. bukhaari iyo muslim xadiisu soo saaray wey. xadiidkii kale oo imaam bukhaari iyo muslim: ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shit. yacni waxyaabaha la soo gaadhay ummadihii hore iyo diimihii hore baqaayaadka waxaa ka mid ah haddaadan xishoonin waxaa rabta samee. taasi waa tahdiid, ma aha in lagu leeyahay samee oo ku socee, waa tahdiid iyo goodi wey. sidaa aduguba ilmahaaga yari u tiraahdo carbal waxaa maanta samee. marka sidaas daraaddeed baa xishoodku wuxuu yahay. xishoodka waxaa la yidhahda rasuulku ulaha sal alla alay slam: walxayaau shucbatun min aliimaan, waa qiima la yidhahdaa. qiimahaasoo wax alla wixii xumaa ood samayn lahayd kaa celinaya. qofku markuu rabo inuu sameeyo been inuu sheego waxa ka celini waxa weeyaan waa xishood. qofku markuu rabo inuu khayaano sameeyo waxa ka celini waa xishood.
wadarti wixii waad kasoo istaagaysaa. kaa marka hadduu meesha ka dhammaado waxa weeyaan wax qofka u hadhaaya ma jiro. maqsuudkii ujeedadu waxa weeye dunuubtu waxay daciifisaa mar labaad xishoodkiiba addoonka ka qaadaa ilaa uu dhammaanba ka siibmo uu ka tago, isagoo arki marka dambe isagoon kala jeclayn shaygani ma samaynaya, ma xalaalba, ma xaaraanba, ma samayna, ma daynba, qofka kale samaynaya xitaa aan danka lahayn. ilaahay subxaanahu watacaala haynagu qurxiyo حياة يحشوط إلهي نقرحيو. ربي سبحانه وتعالى نهينا حفظيو. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.